bal musaafada fiiri labada ciidan intay isu jiraan jamaahiirtuna waa kuwan ciidamadii kale oo yahuudina waa kuwan soo arkimaysid si fiican u fiiri tani biyay noqonaysaa biyo arrinta kale ee maanta yahuudda hoogga iyo halaaga ay la kulantay waxa waaye waa guutada 630 ee ciidamada yahuuddu ay marinka Gaza kaga dagaalamayeen waliba ciidamakeeda bay ahaayeen meesha ayaa lagu qarxiyay Allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa idin salaamaya dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed oo meel kastoo dunida ka joogtaan waa walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen waa rajeynaya anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigan uu mar kale dib inoo kulansiiyey isaga ay mahadaasi oo idin u sugnaatay inta dhiban rabbi ha u dhib yareeyo inta isugu toosan tahayna Allahu barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan ku wada salino muuqaalka noo shargare maanta muhiim ayuu ugu yahay qof kasta oo muslim ah inuu qalbiga ka farxi doonana waan aaminsanahay soo dhawaada ma tahay hooyo rabto ayadoo gurigeeda joogto ilmaheeda dhex fadhido inay income sameyso ma tahay aabar raba inuu dhaqaalihiisii kordhiyo ma tahay qof dhalinyar ah oo shaqo la'aan hayso raba inuu income sameeyo haddana ku adag yahay qaabkii income-ku u sameyn lahaa haddii jawaabtaada ay tahay haa waxaa ku joogto manager Saadi Xirsi oo ka qabtiri doonto adoo gurigaaga jooga masha Allah tabarakallah income-ka ku sameyn kartid qaybtaada internetka telefoonka waa haysataa bila macna oo isticmaasha laakiin ku shaqeyso adigoo online gurigaaga joogo soo dhawow manager Saadi Xirsi waxaan aaminsanahay inaad dhaqaale badan sameyn doontid ooga maarmi doontid shaqada banaanka aad iyo aadna iga soo mahad celin doontid manager Saadi Xirsi soo dhawow aad iyo aad kulay telefoon lambarka shaashada ayaad ka aragteen linkiga manager Saadi Xirsi aad kala xiriiri doontana qaybta commentiga ugu horeeya ayaan ku dhigi doonaa waad ku dhufan toos baad oo la xiriiri doontaa halka ayay ka caawinaysaa biidnillaahi karim aad baa u mahadsantiin walaalayaal sida aad la socotaan muddada la idiin sheegi maayo 7 Oktoobar ilaa iyo maanta oo muuqaalkan aan idin la wadaagayo waxa gacanta iyo foolka iskuula jira dagaalkii dhulka ahaa ee ciidamada yahuuddu sida gardarada ah ay ugu soo qaadeen shacabka masaakiinta ee reer Falastiin ayagoo markaasi is awood bidayay oo laha waxaan gacanta ku soo qaban doonaa kooxaha Xamaas ee la dagaalamayay muddada inta leeg laakiin yahuuddu waxa ay hadda la kulantay wax ay filinaysay ma aanay ahayn runtii filan waagaas marka maanta yahuuddu ku dhacay waxa uu sababay in madaxdii ugu sareysay ee yahuuddu maanta iyagu ay isku dhiganaadaan oo yiraahdaan adaa sababta laha adaa yiri duulanka qaad adaa igu dhaha dagaalka aan galno ayaga madaxa sida isku gula jira culays aad u baan oo warwar badna uu ka muuqdana dhanka shacabka yahuuda ayay ka haysataayo maalin walbaba waxa la hortaagan yahay madaxda ugu sareysay ee maamulka yahuuda guryahooda oo la leeyahay aaw dadkanagi ma soo celisaan dadkanagi ma noo badbaadisaan ayaa lagu hayaa arintii waxay socotaba wiigi hadda u dambeeyay yahuud waxay soo istaagtay oo madaxdii carabta qaar kamid ah ay kala hadashay in Xamaas la wada hadashiyo oo maxaabiistii ay kala hayeen la isu soo celiyo waa ogtihiin Xamaas bayaan bay soo saartay wadamadii dhexdhexaadintana way u gudbisay caalamka intiisa kalena way u gudbisay waliba shuruudaha adag oo ay ku xirtay waxa kamid ahaa haddii yahuuddu ay maanta diyaar u tahay nabadgelyo inay annaga naga hesho annagana aan ku noolaano ayadana ay nabadgelyo ku noolaato hal askari oo yahuud ah waa in dhul Falastiin ay leedahay aan lagu arag oo ay ka baxaan waliba shacabka labada daamood shacabka Falastiiniyiintu waa in si xor ah isaga gudbaan haddaysan ahayn yahuud iyo annaga wax wada hadal nooma yaal haddii go'aanka ay ogolaatana wadamada aan idin tiriyay oo Masar ay kamid tahay Qatar iyo Mareykanka iyo Ruushka iyo Turkiga wadamo ay kamid yihiin baa waxay tiri waa inay goobjoog ka ahaadaan oo hadhow ballan bixi halka ka yimaada mas'uuliyadda ayaga loo raacan doono yahuud waaga ku bariyay waxay filinaysaa waxaan ahayn bay meeshii kala kulantay yahuud marka hore waxay islahayd nimankan Falastiiniyiintu aad bay u daciifeen bal goolkan ku baasa inay iska dhaliyaan goolkii on gool buu ayaga ku noqday marka ayaga dib isaga dhaliyay arintii yahuudi loo qaadan waa bay noqotay waxay tiri arinta ma geli kartiin Soomaha haddaba Xamaas waxay soo bandhigtay ciidamo kale oo kayd ah bay Xamaas soo bandhigtay si khaas ah u tababaran oo kumaandoosa oo aan dagaalka hore ugu jirin bay soo bandhigtay waxay tiri anagana diyaar baan hadda dagaalkuba hadduuba ka wanoo yahay yahuudi waaga ayaa ku bariyay ciidamo marka waxa jira yahuudu ay leedahay oo ay ku tashanaysay oo guutada 630 la yiraahdo oo marinka Gaza ayaguna keed ahaan u joogay
oo la islahaa haddii ciidamadan yuhuudda la soo jebiyo weerarku adigu difaacaad u noqotaan isla markiiba waa laga war helay ilaahay subxaana wa tacaala dee qof uu la jiro miyaa khasaaraya waa maya isla markiiba waa laga war helay goobtii ay joogeen ayaa lagu qarxiyey weliba dhimashada ciidamada yuhuudda ee meesha ka soo gaartay way qariyeen waayo haddii ciidamadan lasoo bandhiga qarintooda waxa ay niyad jab ku noqon doontaa baa la yidhi shacabka yuhuudda iyo weliba ciidamadii kale ee dagaalka ku jiray waa la qariyey keliya waxay soo bandhigeen dhowr askari oo ugu horeeyo hogaamiyihii guutada 630aad iyo ku-xigeenkiisii ayay soo bandhigeen qaraxaas marka runtii aad bay ugu ba-een uguna jabeen dheeraatay ay dhowaatanana muuqaalkaas waa la heli doonaa waa adinka arkaya marka siday u dul hoganayso halkaana jab xoogan ayaa ka soo gaaray haddaba markii qaraxaasi uu dhacay oo ciidamadaas meesha isku aruursaday maxay ahayd horjoogahoodiina la dilay dhaawacii dhimashana meeshii ay kala kulmeen ciidamada xamaas marka maxay sameeyeen markii horeba way diyaarsanaayeen dagaal foolka fool ayay toos u soo galeen halkan waa Khan Yunis waa meesha sida ba'an ciidamada yuhuudda loogu laayay xaqiiqatan si ba'an ay ciidamada yuhuuddu halka ugu laadeen waxay leeyihiin warbaahinta caalamiga oo waliba luuqadooda iyo afkooda ku hadla waxay leeyihiin Khan Yunis waxa ka taagan waa arin aad iyo aad u adag oo markaas yuhuudda ku noqotay anfariir waxaan filinin ayay ku noqotay taa marka maxay maanta sababtay taasu marka maanta waxay sababtay dhimashadan iyo dhaawacaan loo geystay ka sokow in maamulka yuhuuddu aanu dhihi karin shuruudihii xamaas ay soo saartay waa ogolaanay ma dhihi karaan hadday dhahaanna maxay hore ugu diideen jabkii maanta idin soo gaaray baa tusaale idin noqday oo saasaad ku aqbasheen baa hortaal berri dagaalkiina intaa ka badan ma sii wadi karaan oo waxa uu ku noqday caqabad ciidamadoodii maalin walbaaba meydkooda mid la sii jiiday iyo mid la soo jiido ayay isku bedeleen iyo qaar depression inta ku dhacay dib ayagu iskula hadlay qaar go-aan qaatay oo ka baxay meeshii weliba jamaahiirtu aan idinkugu dare markay arkeen jabkan yuhuudda maalin walbaba soo gaaraya iyo dhibaatooyinkan ku dhacaya hanjabaadoodu ma yara marka way u sii hanjabayaan waxay leeyihin Netanyahu weli la isma gaarin dagaalba hadduu kow yahay 2 isbuucba markii la joogo jamaahiirtu waxay yiraahdaan dagaalku weliba anaga commandostanadii iyo ciidamadii sida gaarka ah noogu tababarnaa ee dagaalkan u diyaarsanaaba weli dagaalkii ma soo galin hal mar bay 10 kiilo ka go'aysaa marka hog waxay marka maanta taagan yihiin war waxna soo qaban maana hanjabaad inuu naga daayaan shacabka yuhuudna culays kale ayay ku hayaan oo gadaal bay ka soo boosh gareynayaan qaarna way yaabayin shacabka waxay leeyihiin ilaan moogta inay wax weeraraan oo wax duqeeyaan moogi wax laga dilay oo mid maalin kasta la sii jiiday oo la soo jiidayo shacabkooda waa u koob moogta waxaan maalin accident ku dhacay maahane waa u bilow waxay leeyihiin wardeetani mid loo dulqaadan kara maaha bal ninkan xilka aan ka wareejino kursiga isku dhajinaya aan xilka ka qaadno oo doorasho degdeg ah waa inaan galnaa bay shacabkii qaarkood soo jeediyeen soo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisa ayaa ugu deeqay in jamaahiirtu falkan 24 saacadood ugu dambeeyay ay kula dul dhaceen maxay tahay ciidamadii maamulka yuhuudda oo waliba ugu darneed guutadii 630aad oo markaasi marika Gaza ka dagaalamayay oo halkaas ay xaalad maraysa sargaalkii iyo ku-xigeenkiisii hogaaminayay guutada maxay ahayd 630aadna meedkoodii waa ka maanta waxa lagu aasayaa maxay ahayd qabuuro ku yaal magaalada Tel Aviv ee caasimadda u ah maamulka yuhuudda inta waa isla fahanaan rajeynaya so markaan intaa ku leeyahay yuhuuddu macnaheedu ma aha in salsalaax meesha ay u joogtay oo baryootan ay u joogtay yuhuuddu khasaare aad u ba'an dhibaatooyin iyo rafaad bani aadan uusan u dulqaadan karin ayay u geysatay shacabka walaaladeen ee kitaabka ilaahay ee munazalka aan ku walaalownay ee reer Falastiin runtii aad iyo aad bay ula dul istaageen duqeymo aan loo kala aabayeelin xitaa iska daa magaalooyinkii Khan Yunis ayaga lagu laayay inta laga soo gudbay dadku markii ay soo qaxeen oo dhankan xuduudda u soo dhawaadeen dhankan rafax u soo dhawaadeen bay haddana madaafiic inta la dul istaageen dad masaakiin ah oo waxba aan galabsan oo shacabkii masaakiinta Falastiin ee ka soo barakacay deegaanadooda ay laayeen maxaa keenaya marka waxa soo inay sameeyaan waa xanuunka ku dhacaya waay markay jug culus ee ku dhacdo isma oga waxay leeyihiin waxaad ku aargoosan kartaan in boqolaal Falastiiniyiin ameedkooda la jiido sakada dhanna dhulka la jaro
masaakiin badan ay oydo caruur iyo hooyooyin ay kala lumaan baad ku aana goosan kartaan wax la yidhahdaa markiiba qalbigooda ku soo dhacaya markaasay waxay wadaanba meeshay arkaan kula dul dhacayaan waa musiibo rabbaaniya ilaahay baan uga baryaynaa una weydiinaynaa in rafaadka iyo dhibaatada shacabka reer falastiin haysta uu ka dulqaado ducooyinkanaga aan ugu deeqno ilaahay subxaana wa tacaala dartiina aan ugu duceyno aana aaminno ducooyinkanagu inay gaarayaan waxna u tarayaan iyaguna dabcan way aaminsan yihiin ducada qofka walaalka ah ee kaa maqan uu kugu soo duceeyo waa maqbuul oo rabbigan wuu aqbalaya insha allahu tacaala rabbigan aan u weydiino bir ramadaan oo barakaysan ayaa fooda nagu soo haysa intaan gacmaha kor ugu taagno dadkaa walaaladeen aan rabbigan u weydiino musiibadaa ku dhacday inuu ka dulqaado yahuudda iyo waxa ku soo duulayna rabbigana uu jebiyo gacanta nasriga iyo guushana ayaga uu siiyo intaa waxba nagama guuso waa ugu ducayn karnaa markastoo rabbigan aan gacanta kor ugu taagno ducadaas yaanan ka ilaabin biidn illahi alkariim kulley maanta 24 saacadood ugu dambeeyey wixii dhacay intaasay ahaayeen waa laga yaabaa saacadahan muuqaalkan idinla wadaagayo inay wax kala soo kordhaan hadba wixii soo kordhan laakiin muuqaalada xiga ayaan idinkugula wadaagi doonaa biidn illahi alkariim aad baa u mahadsantihin walaalayaal muuqaalada xiga intaan dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh